haddana waxaan fursad u helnay inaan wareysano deeqo oo ka mid ah qabanqaabayaashii barnaamijkan maanta halkan la isugu yimid oo ah baroordiiqa loo sameeyey walaasheen allah u naxariisto marxuumadii dhimatay sida xun loo dilay hodan xaashi deeqo ku soo dhawow abaay waxaan rabaa inaan kaa wareyso dhowr arrimood barnaamijka marka aad meesha maanta ku qabatay sidee kula ahaa sideena isugu heshay waqti si ugu heshay oo barnaamijkan aad ku qabatid maxaana ahayd ulajeedada ka dambeysay waa mahadsantahay walaashay barnaamijka maanta la isugu yimid waxaa waaye visual ama baroordiiq ay soomaalida dhahan barnaamijkana waxaa runtii isku soo dabaruday oo ka dambeeyey qoyska oo lagu dhigaayo magaalooyin kala duwan sida Toronto, Ottawa, Edmonton, maaragtay Saskatoon oo ka dhacay sida fooshaxna walaashay meesha lagu dilo walaashay hodan xaashi maanta runtii waxaa la isugu yimaaday inay tahay in aan ka dhidhino oo runtii aan dhaleeceyno sidii maaragtay fooshaxna walaashay loo dilay hodan justice-na inaan ogaadino oo runtii aan ahno sidii ay xaalku ay u qabteen ama dowladda ama askarta ay runtii ay go'aanka ay gaareen go'aan inuu ahaa qaldan oo anaguna aanan soo dhaweyneynin mana joojinayno qoyskuna runtii ayagu waxaan u nahay inaan support gareyno runtii muhiimka waxa weeyaan in wixii dhacay aan ka hadalno inaan dhaleeceyno inaan cambaareyno iyo in aan qoysku garab taagnaano in maaragtay oo aanan joojinin ilaa iyo loo hadlo hodan xaashi cadaalad ay hesho waa mahadsantahay waxaa ii sheegtaa marka dadkii maanta meesha isugu yimid iyo sidee qaab ahaan ama guud ahaan u dhacday isu imaanshaha iyo baroordiiqa maanta siduu kuula muuqdaa runtii sidee u dhacay baroordiiqa runtii aad iyo aad waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed isku soo baxday kan waa midkii ugu horeeyay sababtoo wadamo magaalooyin badan lagu dhigaya laakiin midka weyn waa sii qabanayna oo ismaaragtay qoysku sida ay ayagu rabaan baan markastaba loo dhigaya u dhacaysa ummad badan oo Soomaaliyeed oo reer Toronto isku yimid runtii ka hadlay oo sheer gareeyay waxaan ka aqrinay familka qoyska runtii ay soo gudbisteen sidii ayagu maaragtay ay maadaama aysan magaalada Toronto ay degnayn inaan anagu maaragtay meesha ka aqrino message-ka ay soo gudbisteen inaan dhaleeceyno dad badan oo runtii oo Soomaaliyeed oo reer Toronto way ka hadleen aad iyo aad dareenku wuxuu ahaa ummadda ay runtii aad uga caroodeen marka carab badan iyo runtii wax laga naxo oo argagixis camal ugu noqotay oo anagii dhan aan maaragtay maskaxdu xataa aysan qaadan karin sababtoo dilku muusan ka dhicin guri ama xaafad wuxuu ka dhacay meel oo public ah oo ummad badan ay joogeen qof xataa mala waaye joojiyo qof dadka ina cunsurnimada iyo maaragtay sida foosha xun maaragtay ay qaarkood xataa ay dhahayeen ay moor ku fiirsanayeen intay joojin lahaayeen iyo dowladdii iyo xukunkii oo noqday ay maaragtay wax oo qofkan waa kaga fakatay oo kale waa gartay arrintaasaan rabaa inaan kaa wareysto wax kale oo macnaha xagga dawladda waa la soconaa inay gabadhii beel lagu soo daayay laakiin wax kale oo aad la socotid ma jiraa oo ilaa iyo hadda ama wax la leeyahay waxaasaa laga qaban doonaa dhinaca sharciga maya ilaa hadda anagu waxba lama socono anagu hawsheena kaliya waxa weeyaan inaan qoysku garab istaagno inta anagu nala socodsiiyey ilaa hadda oo ah in visualka iyo baroordiiqan la bilaabayo uu sii kobcayo sii weynaanayo inaan dad badan aan cusubno oo Soomaali ah iyo dad aan Soomaali ahayn inay qayb ka qaataan inay maaragtay walaasheen cadaaladeeduna aan ku ilaa aan helno inaan joogsanaynin laakiin xaalkii sida wax u dhaceen iyo arrimahaas oo dhan ilaa hadda waxa wax oo dawladda iyo xukuumadda iyo booliiska ay ku kooban tahay qoyskuna runtii ayaguna kulay uma maleynaayo wax badan inay ilaa hadda og yihiin laakiin anagu
ahaan dadka organize gareeyna lama share gareynin anaguna shaqadeena ma ahayn inay wax nala share gareeyaan shaqadeena waxay ahayd inaan runtii aan projectkan aan ummadda iskugu keenno ay ku dhacdo Toronto qaybta Torontona inaan taagnaano waana ka qaadanay ilaa mana joojinayn ilaa iyo cadaalad ay hesho hodan xaashi midda kale hadda sheegtay oo ah macnaha baroordiiq kale weyn inaad soo qaban qaabinaysiin xogaa yar oo faalla ah naga sii baroordiiqdaas sidee noqonaysaa yaa lagu soo casumi doonaa habkee u dhici doontaa iyadana baroordiiqan waa just mid ugu horeeyay visual in Toronto laakiin qofkii raba inuu qayb ka noqdo iyo dadka ay ka soo qayb gali doono kuwa soo socdo waxay kala xiriiri karaan Justice for Hodan Xaashi Instagram-ka page oo ciddo family-ka qoysku ay runtii ayagu ay u fureen runtii qofkii raba inuu qayb ka noqdo qofkii raba cid inuu la xiriiro waxaan anagu leenahay cidda la xiriira oo kala xiriira Instagram page-ka oo ah Justice for Hodan Xaashi aad u mahadsantahay ugu dambeyntii maxaa dadka ummadda Soomaaliyeed maanta kuwii aanan ka soo qaybgelin laakiin fursad u heli doona hadii Ilaahay raali ka dhigay inay daawadaan barnaamijkan ama ay maqlaan maxaa dhiilahay dadka kula talin lahay inay ka qabtaan arintan saa la socotid waxaa jira dad support gareynaya oo badan alxamdulillah waa la helay laakiin dad kale xoogaa waxaa jira maaragtay lugta ka gaabsanaya marka maxaa kula talin lahay dadkaas dadka runtii waxaan kula marka dadkii qayb ka qaadanayo oo kuwii maanta qayb ka qaatay iyo kuwii hore iyo kuwii caawin iyo dad badan xataa waxay jiro oo runtii share gareenayo oo maaragtay oo raba dad ka dhiidhiyay runtii dadkaas oo dhan waxaan leenahay waa mahadsantihiin inta soo qayb rabta inay ka noqoto oo soo socotana runtii ayaguna way ku mahadsan yihiin inta oo aad tiri sida hadda tiri ka cagajiidaysa ama aanan maaragtay dareemayso inay hawshaan qof kale u taalo runtii waxaan leeyahay taas ma fiicna sababtoo qoyska iyo hodan walaasheen xaashi wixii ku dhacay qof kasta ku dhici karaa as you can see anigoo deeqa ah oo ujeedaa visible minority weliba ahay haddii qof wax igu sameeyo waxaan jeclahay in ummadda dhan ii istaagto Soomaali non Soomaali dad kale oo ajnabi ah waxaan jeclahay qof kasta oo bilaadana inuu maaragtay ii dagaalamo marka waxaan leeyahay qof kasta kuwii qaybka ahaayeen iyo kuwa aanan qaybka ahaynba ka soo qayb gala qayb ka noqdo qof kasta waa loo baahan yahay qof kasta inuu is oranin midna mala aniga ma baahna laakiin waa lagu baahan yahay sababtoo xaaladan dhacday xaalad oo ma aha oo bini'aadanimada runtii ka baxsan weeyaan marka mahadsantahay muhiimadaasaan hadda ku soo xasuustay maadaama arintan aanan ahayn arin yar oo gabadha waxay isku darsatay waa gabar Soomaaliya way tahay laakiin at the end of the day waa gabar madow ah ma fahamsantahay waa gabar madow ah waa gabar Canadian madow ah marka Soomaali way ka ballaaran tahay arintan marka maxaa uga tala jirtaan dadka kale ajaanibta ah sidee damacsantihiin inaad iyaga ruuxadooda uga soo qayb gelisaan because dan arintan ay kale qof kasto Soomaali ah kaliya qof kasto madow ah iyo qof kasto ajnabi ah oo wadanka joogay ku imaan karta marka sidee kula tahay dadkaas kale in looga soo qayb geliyo runtii waa sax hodan xaashi waa gabar waa haween first waa women violence way dhacdaa waa qof madow ah dadka madowga violence iyo racism lagu sameeyaa qof waa muslim waliba muslimiintana runtii cunsurinimo badan oo lagu hayo way jirtaa waana qof Afrikaan ah oo maaragtay yar marka waxaan leeyahay waxaan cunsurinimada way jirtaa runtii markaan fiirinana qof ajnabi ah waliba oo cadaan oo kale haddii isagu wax lagu sameyn lahaa dad badan runtii waxay dhilaayeen qofka madowga wuxuu sameeyay waa qalad laakiin marka qof madow wax ku dhacaan in oo la yiraahdo qofka way kaga fakatay oo qofka way kaga noqotay oo umadan lahayn oo gacanta kaga dhacday oo in the heat of the passion waxay dhahaan jiraan oo qofku maaragtay intuu kululaado oo maaragtay uu controlkiisa uu isgareeyo you can qof kasta uu jeedaa gabadhan yar xaqdara lagu dilay qofka dilayna qof ma ahayn oo runtii cirka ka soo dhacay
qof meesha lagu dilana guri ma ahayn meel waxay ahayd dad buuxeen oo dadkii xataa ku fiirsanayeen ayaga laftigooda xataa waxaan jeclahay in dembiga wax laga siiyo sababtoo qof dilaayo waddankan kuma fiirsan kartid mana duubi kartid mana u sacbin kartid qof waliba nafta ka qaadinaya marka taasna waxay u taalaa justice systemka qoysku annagu hadda ayagaan garab taagannahay inay waxaan ay ku dhaceen si qaldanna qof kasta u jeedaa laakiin wax kasta oo cadaaladda hodan xaashi ay ku helayso aniga waxaan leeyahay qayb halaga qaato goobtii ay wax ka dhaceen qof dadkii ku fiirsaday qofkii oo maaragtay waxay maaragtay kasii jeestay kulli waxaan jeclaa anigu runtii in oo cadaaladda loo helo walaasheen hodan xaashi in oo maaragtay qof kastaba qaybta uu ka qaatayna in xukuumadda ay runtii ayagu ay ka gaaraan go'aankaas annaguna waxaa qasab nagu ah inaanu joogsanin ilaa ay cadaaladdu ay hesho hodan xaashi iyo qoyskeeda iyo ummadda iyo community oo dhan oo runtii dareemayso in meeshaan oo ka dhacay fil aad u fudud marka siyaabo kala duwan oo loo caawin karo arrintan wax uga qaban karno badan oo buuxa arrintan Soomaali kaliya uma taalo waxay u taalaa qof kasta oo wadankan jooga waxay ku imaan kartaa qof kasta ku imaan kartaa marka arrintan in loo wada istaago meel looga soo wada jeesto way fiican tahay si aanan loo yaraysan maanta iyo kadib community-ga Soomaalida oo waxaan oo kalena loogu sameeynin qof kastayna ku dhici kartaa marka in meel laga soo wada istaago taasaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo kuwa kale oo soo socda baroordiqyada kale oo soo socdana inaa ka soo qayb gashin waa mahadsantihiin halkan waa raadiyo Danjir iyo muuqaalka Soomaalida TV-ga muuqaalka Soomaalida oo halkan idin kaga soo gudbinaya baroordiqdii loo sameeyay walaasheen marxumadda hodan xaashi Allah u naxariisto reerkeedana samar iyo iimaan Allah ka siiyo